السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أقيارتو كحرن channel كيغي جامع السي أقياري وادن السلام يا كلين دمان ميل والبا الدنيا أدك جوكتان وأنيجي أو جامع أو مانتا إن شاء الله ربو سؤالي ير أو اللي قسو ويدي محلها channelka أقيارتا أنا أدي أدو جعلها أو channel كيغو كحرن أو مر والبا محالي لذا جعل إني كفايدستان برنامجيدا محالي لذا أو ganacsiga gaar ahaan dalka Kenya inaan xoogaa dad badan oo su'aalooyin fara badan oo waxa jira la soo weydiiyaa jiraan oo dadka badankood ay soo weydiinayaan su'aalaha marka badan waxaan soo qaadanayaa su'aalaha badankood oo soo laabto ayaan rabaa markii inaan maanta ka jawaabo horta dadka badankood waxa way su'aalaha barnaamijyada aan soo geliyo dadka oo quseeyaan oo jecel inay xoolaha iyo waxyaabahaas iyo dhulka dadkii rabaa inay iibsadaan su'aalaha soo weydiiyaan waxa u badan lacagta maad ku sheegtay dhahan qiimaha oo dalka dollar maad ku sheegtay dhahan badana anigu waxaan jeclahay markaan barnaamijka markii aan duubayo inaan lacagta ku sheego maxallaha local currency ama lacagta wadankaas aan joogo lacagta ay ka joogto marka sababa ayaa jira sababta keenaysa inaan ugu sheego local currency macna ayaa ku jiro وانا awoodaa inaan u bedelo US dollars laakiin waxaan diidayaa badana dadka oo aniga aan la hadlayo oo aan barnaamijka u duubayo waa dad oo qurba joogto ah qurba joogtadana mar walba hadii US dollars le wax loogu sheego waxa dhici karto in la gaado oo qiimihii micnaha markii lacagta Kenyan shilling lagu sheegayo markii US dollar lagu sheegayo dabcan waa lacag yar ay kula egtahay marka qofka laakiin markii oo lacagta Kenyanka lagu sheego lacagta qofka ay la badato qofku waa fikiraya hada tusaale ahaan qof baa dhul laga iibinaya dhul baa waxa la leeyahay warniyo dhul baan ku iibinayna lacag soo dirsan leeyahay dhulkii meeqa waa uu leeyahay markaas la leeyahay waa $5,000 kaliya la dhahaa $5,000 markii la yiraahdo $5,000 lacag yar ay u egtahay laakiin marka Kenyan shilling loo bedelo 5,000 waa lacag fara badan waayo $1,000 waa 130,000 oo Kenyan shilling marka local currency gana wadankaasna laguma iibsado dollar waxba laguma iibsado waxa lagu iibsadaa Kenyan shilling lagu iibsadaa sida Soomaaliya kala maahan wax walba dollar lagu iibinayo marka waxa dhici karto dhul oo asaga dhanba jooga 300,000 ama 400,000 baan dhahnay in laga siiyo adiga $5,000 oo adina aad u aragto micnaha janis fiican ina meeshaas ka hesho oo micnaha jackpot aan ku angaraca leedahay waxa leedahay micnaha janis aan ku helo waa dhul oo janis ah lagu leeyahay hadhowdii dhulkii 2 sano 3 sanad haynaysa waxaad isdheeysaa bal dhulkii iibi xilligaad rabtay inaad iibiso markaas ayuu market value-giisa $5,000 yahay waayo markii laga iibinayo dhulkan waxa laga yaabaa inuu 300,000 oo Kenyan shilling oo ahaa oo araan adiga $3,000 ama $2,500 in dhulku jooga laga yaabaa adigana hadaad qurba joogna intii lagu gaaday wax walba US dollars lagu sheegay waa ku wareeraysaa marka taas waxay keentay xataa dadka badankood wadan Kenya marka wax la kala iibinayo kale waxa jirto wax la yiraahdo agreement letter jirto agreement letter kaas waa warqad la kala saxiixanayo ay kala saxiixanayaan ninka dhulka iibinayo iyo ninka dhulka iibsanayo warqadaas agreement letter ka laguma qoro US dollars laguma qoro abadan ma lagu qoro Kenya currency ana wadankooda ahayn kuma qoraan maxalla agreement letter waxa lagu qoraa ama warqadda heshiiska aan dhahay dadkan la hadlayo Soomaaliya raali ahada warqadda heshiiska oo labada qofood oo dhulka la iibsanaysa iibiyaha iyo iibsadaha waxa lagu qoraa inay ku kala iibsadeen lacag oo Kenyan shilling lacagtaas oo marka hadhowdi hadii ay dhibaato imaato warqadaas waa cadeyn receipt amal waay marka warqadaas marka qofkii asagoo agreement letter kaas waxaas lagu qoraayo marka waxa fiican qofka in loo sheego currency oo wadanka Kenyanka in loo sheego si aanan loo gaadin oo hadhowda currency-gan hadii lagu dhaho Kenyan shilling hadii lagu dhaho kala hadii lagu sheego lagu dhaho 400,000 oo Kenyan shilling way sahlan tahay inaad micnaha aad ogaataa qiimaha US dollar type because of application ayaa jiro application fara badan jiraan oo currency-ga oo bedela jiro sidii tusaale ahaan XE application la yiraahdo oo aad iyo aad u fiican waana ka xumaa application-kaas hadda aniga xayisiin uma sameeynayo aniga lacag uma siinayaan inaan u sameeyo shoutout-kan laakiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan marka badana markaad wax iibsanayso tipska ugu weyn wadanka wax ka iibsanaysid currency-giisa igu sheeg qofka markaas waxa aad iyo aad u yaraanayso janiska in lagu gaado
marka taas ayaa keenaysa sababtaas marka sababahaas ayaa jiraan su'aasha labaad oo macnaha dadka badankooda aad iyo aad i weydiiyaan waxay tahay xayeysiimahan aad dhulka aad xayeysiinaysa sida Kenya oo kaleeto ma dawladda Kenya kugu siisa maxaa la yiraahdaa lacag kugu siisa inaad xayeysiin samayso maya run ahaantii dawladda Kenya waxba iguma siiso inaan xayeysiin u sameeyo xayeysiin igama baahna dawladda Kenya nin maanta oo YouTube-kiisana macnaha de millions followers gaaray oo maanta xayeysiin ay uga baahan inuu sameeyana ma ihi marka sababtan u sameeynayo waxaan waa passion aniga aan leeyahay oo aan rabo macnaha de ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan dalka Kenya kaliya ma ahan aniga waxaan taageersanahay in Africa oo dhanba in la maal gashto maadaama ay tahay Africa waa meesha kaliya oo macnaha de oo adduunyada hadartan wax walba adduunyada naqtaa oo horumarto the first world leeyahay sida Europe iyo Mareykanka Africa ku tiirsan yihiin markii la yiraahdo raw materials markii la yiraahdo wax walba oo qaaligan u jeedida teleefoonadan hadda aad u jeedo sida iPhone-ka iyo Samsung-ka waxaa jira maadooyin oo ay isticmaalaan oo ay telefoonkaas ay ku isticmaalaan oo laga helo Africa kaliya gaar ahaan maxaa lahaa wadanka Congo marka Africa nimca taala laakiin dadkii kala soo bixi lahaay ayay laadahay marka badana Soomaalida waxaan yiraahdaa Kenya oo kale waxaan badana aan u tago aan dadka aan ugu sheego jaanisada yeelan tada kale aniga jaanisada Kenya ani badana waxaan ka hadlaa xagga agriculture ama maxaa lahaa xoolo dhaqatada ama dhulalkan ka hadlaa waayo hadda adduunyada hadda u jeedaan real estate waa the only thing oo macnaha de aan value-giisa aan hoos u dhiceynin waa mar walba it always appreciates dhul maxaa lahaa khasaare ma keenayo haddii hal dhib bis ayaa keeni karta dhul inuu qiimihiisa hoos u dhaco taasna waa colaadda dhul haddii aad qiimo badan ka bixiso haddii ay colaad dhacdo definitely dhulkaas macnaha de value-giisa waa dhumaya laakiin as long as aysan jirin maxaa lahaa colaad aysan meeshaas ka jirin oo dalka dal stable oo yahay Soomaali fara badan aad Kenya ka taajirtay Soomaali fara badan aad Kenya macnaha tusaale ahaan Kenya maqaayadda ugu weyn Kenya oo one of the best restaurants oo maxaa la yiraahdaa hadda Kenya ku taalo oo hatta hada Uber walbo aad qaadato aad tiraahdaa take me maxaa la igay hada tiraahdaa maxaa la restaurant ugu qatarsan oo ku taala Nairobi town wuxuu ku leeyahay waa CJ soo ku wada CJ ku geenaa CJ askale waa nin Soomaali askale marka Soomaaliya marka macnaha wadan hadda Kenya oo kale inaad ganacsi aad ka samaysato ama dhul aad ka iibsato macnaheeda ma aha dadka inaan dhahayno ka soo taga Soomaaliya Kenya u soo guura ma aha wadankii anaga aadan ka jecel weerili anaga wallahi ma dareemi kartid macnaha de sidaan u jeclaan lahaa inaan wadankayga inaan ku noolaado dadkayga aan garanayo isku luqadnaano isku diinaano waxyaabo badan aan iska leenahay inaan ku dhex noolaado I really like it aad aan u jeclahay laakiin ganacsiga iyo mar haddii ay noqoto waxa loo soo baxayo oo hadda qurbahan hadda waxaan u joogno inaan qaraabo ku soo salaano meeshaan uma imaanin meeshaan waxaan u imaanay inaan shaqaysano u imaanay marka haddii oo bilaadan meel alla meesha uu dantiisa ka arko inuu ku noolaan karo oo nabad uu ku helayo iyo maxaa la yiraahdaa iyo nabadgelyo uu ku helayo oo afaarihiisa aan la galaynin waa ku noolaanaysaa maxaa diidaya hadda Uganda hadda tan waxaa joogto islaan oo Soomaaliyeed oo maamo Soomaaliyeed oo aad iyo aad oo successful ka gaartaa jirto waxay ku noolaan jirtay Kenya maxaa la xuduudkeeda ku noolaan jirtay waxay iibin jirtay masaamiir iibin jirtay barada hadda taana waa one of the richest lady maxaa lahaa oo Uganda joogto waaye waa I'm very proud inay tahay qof Soomaaliyeed inay tahay maxaa la yiraahdaa qofka ugu successka badan maxaa lahaa dalka Uganda waa ani farxada ii tahay qoftaas qaraabo ma nihin ma is garanayno laakiin magaca Soomaalidaas aan wadaagnaa qof walba Soomaali ah oo success gaara oo wax sameeya aniga farxada ii tahay runtii waan jeclaan lahaa qof walba Soomaali ah oo success gaara inaan soo booqdo dad badan hadda waxaan u tagay Kenya joogo oo xagga dhaqaalaha markii la yiraahdo xagga xoolaha kale aad iyo aad macnaha de ka gaara maxaa la yiraahdaa guul weyn ka gaaray tusaale ahaan Marerene Feedlot Farm meesha la yiraahdo oo aad daawateen barnaamijkiisa waxaan filayaa inaad aragteen oo barnaamij dheer aan ka soo duubo nin la yiraahdo Matt Mudhama meesha joogo dadka badankood waxay u maleeyaan meeshaas Feedlotkaas inuu leeyahay Matt Mudhama ma laha meeshaas waa nin Soomaali iskale badana aniga waxaan jeclahay dadka waxyaabaha Soomaalida markaan aan soo bandhigayo maxaa lahaa ganacsiyadooda run ahaantii hal qof oo Soomaali ah oo aan barnaamijkiisa aan soo bandhigay oo aan lacag ka qaada ma jirto xaaraantu bilaayo waxa aan sameeynayo
waa inaan soo bandhigo un kaliya Soomaalida guusheeda bisle waaye waxaan sameeyay aniga lacag ku baxsho inaan macnaha hadii aan soo bay waxaas wallahi ma dareemi kartid hadda tusaale ahaan ninka la yiraahdo Cabdi Dayib barnaamij waxa jirto oo aan ka soo duuba ninka oo la yiraahdo ma sha Allah oo makiina road joogo oo wuxuu haystaa 980 acre oo dhul haystaa waa 980 acres waaye hada waa dhul aad iyo aad u weyn 980 acre waa halka acre waa 8 boos waaye marka 8 boos bal ku dhifaa adiga 980 waa aad iyo aad waa intaasoo kun oo dad ku noolaan kara meeshaas marka ninkaas nin Soomaali iska la meeshaas ninkaas 3 jeer ayaan meeshiisa tagay si aan barnaamij uga soo duubo maalintii koobaad ninkii meesha ma joogin oo meesha iska lahaa aqoon ma isku lahayn waan tagay meeshii waxa lagu yiri ninka meesha boos ka lahaa meesha ma joogo waan ka soo laabtay intaas fiiri qarashan ku baxaya oo taxi aan ku tagay meesha maalintii labaad aan tagay roob ayaan wax ka duubi waayay barnaamijkii dhan subaxdii saan u tagay kamarada aan wato markaasna aad iyo aad waxa aad ii ciishay kamarada aan wato wax kamera la yiraahdo DJI Pocket 3 oo water resist ma ahan barnaamijkii waan duubi waayay asagana because of roob awgeed sidaan u joogo meesha wax waqtiga ugu dhamaada meel kalena ballan ka lahaa waxayna qatay inaan barnaamijka aan ka soo tago haddana waa maalintii labaad maalintii saddexaad aan tagay haddana ilaa amurtis waxaan la kulmay ninkii oo joogo hawadii oo fiican tahay waan aragtay barnaamijkiisa oo hadartan aan qaybtii koobaad iyo labaad aan soo daayay insha Allah labaad saddexaad iyo afraad way dhiman yihiin marka aniga dib u soo maro marka waxyaabahaas aan u marayna waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan macluumaad inaad hesho wax lagu sheego baryahan it cost money lacag waaye qof hadaad Afrika maanta aad dirto tira warniyo intaas ii soo ogow guri meeqa lagu dhisay hal boos aan rabaa inaan darbi ku wareejiyo qofkaas baxayo oo waqti ku gelinayo lacag uu ka rabaa marka aniga waxaan isku dayaa waxaabi aan ku ciishooday oo aniga aan awoodi waayay inaan helo ligu wareeriyo inaan adinka free idinku siiyo marka umada mar raba hadda inaan ku sii dheeraado barnaamijkan insha Allah wixii su'aalaha ugu badnaado insha Allah hadii la yiraahdo su'aalaha ugu bato la soo weydiiyo waxaan rajaynayaa inaan ka soo jawaabo qayb marna ka soo jawaabo fiidiyoga mar raba inuu aad u dheeraado maadaama dadka ay ku caajisayaan fiidiyada markuu aad u dheeriyahay marka qayaartay waa salaamaya fadlan hadii aad channelkan ku cusub tahay fadlan like iyo subscribe iyo share channelka leh si ummadda kale oo macnaha u baahan oo u gaaro waan ogahay Soomaali fara badan ayaa ka faa'iideysan karto barnaamijyadan dad badan oo Soomaali waxa jira qurbaha joogo oo jecel inay Afrika inay maal gashtaan ee Afrika ay guriyo ka dhistaan ee Afrika maxaa laha beero iyo xoolo ku sameeyaan insha Allah su'aalooyin fara badan oo ku saabsan xagga xoolaha si loo dhaqday dad badan isoo weydiinay insha Allah iyaga ka soo jawaabi doona marka su'aalihiina fadlan maxaa la yiraahdaa igu reeba WhatsApp-ka ama email-ka xataa igu soo diri kartaan marka insha Allah adiga waxaan isku dayanaa inaan iscaawino adinkana caawisinaan inaan iscaawino insha Allah waan salaam ay qaarta salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh